بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهدي الله ولن يضل له، ومن يضلل الله فلن يهدي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وولالكين داود عمر ومكم قعدير أبوان داود علي مصلح إني أمان سوقلين مانتا ميشن إنان قبيو كسو جيديو مكقبيو أمان سوقلين إنان حيالك لإدين لسعوديو أمان سوقلين إنان كحديثو وحن أسوق لي مانتا inaan idinla socodsiiyo habeen hore in ay qardho ka dhacday maxaanku radaa fatahaad biyo ah, roobabkii da-ayay, nimcooyinka uu ilaahay keenay ay ka dhacday, ay maxaanku radaa qoysas meeshaas aad u badani ay ku guryo waayeen, ay ku barakaceen, ay 10 qofoodna ku geeriyoodeen. Inta geeriyootay waxaan leenahay marka ugu horeysa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Marka labaad waxaan leenahay ilaahay naxariistii janno ha wada siiyo. Inta kale ee ku barakacdayna ilaahay ha ugu bedelo khayr iyo noloshii hore ka fiican ilaahay ha ugu bedelo. Intaas ayaan marka ugu horeysa aan leenahay. Marka labaad waxaan hadda ahaan videogan aan usoo duubay inaan idinla socodsiiyo in ay dhibaatadaasi qardho ka dhacday markuu ila soo socodsiiyey walaalkayga qaaliga ah ee Dr. Haruun Axmed Jaamac Caar oo ku magac dheer yahay insha Allah biidmillaahi kariim. maxaanku radaa uu ila soo socodsiiyey, anigana waxaan niyaddayda geliyey inaan idiin soo duubo oon idinla socodsiiyo. waxaa loo baahan yahay in aan gurmad degdeg ah aan la gaadhno dadkaas. waa dad walaalaheena, waa bir Rabadaan, waqtigii ugu qaalisnaa ayaan ku jirnaa. sadaqada ay qiimo ku lahayd, sadaqadana gacantaada midigta waxay bixinayso, bidixdu yayna ogaanin ayuu rasuulku odhay sallallahu calayhi waalihi wasallam xadiisya saxiixa inoogu soo sheegay. waqti xaadirkan aan ku jirno waxa aan ku jirnaa maanta ahaan waa bir Rabadaan. sake ayaa kugu waajib ah inaad naftaada ka bixisid, maalkaaga ka bixisid, ciyaalkaaga ka bixisid, xaaskaaga ka bixisid. maanta waxaa loo baahan yahay gacan dheeraad ah oo degdeg ah oo walaalaheen aan ku garab qabanno. waxaanan u duubayaa dadka hadda ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin. meeshaa doontid ku noolow, waxaa loo baahan yahay degdeg gurmad ah inaan la gaadhno dadkaasi. waxaanan hadda ahaan codsan lahaa insha Allah biidmillaahi kariim inta Yurub ku dhaqani inay sida ugu dhaqso badan wixii ay hadda ahaan isla gaadhayaan ay iskula gaadhaan. guddiga loo soo magacaabi doono maalmaha soo socda insha Allah biidmillaahi kariim la gaadhsiiyo, si ay walaalkaa aad u quudisid ood walaalkaaga qaaliga ah aad u afursiisid, isagoo oo gurigiisii oo daad qaaday, hantidiisina daad qaaday. horta waa waxyaalo laga cawdi bilaysto. ilaahay baan ka magan gallay. waa waxyaalaha ummadda caalamka ilaahay uu ku rogo oo ummado badanna lagu halaagay. ilaahay baan ka magan gallay inuu nagu halaago dab iyo olol iyo biyo. intaaba ilaahay ayaan ka magan gallay. waa midda kale waxaan codsan lahaa walaalkayga qaaliga ah, meesha aad doonto ku sugnow. walaalka qaaliga ah haddii maanta aad sidii xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi waalihi wasallam ha ku sheegay walow bishiqi tamran, timirta barhkeed haddii aad siisid walaalkaaga qaaliga ah, waa xasanaad ku yaala maalinka qiyaamaha. waxaan jeclaystay inaan kula soo socodsiiyo ood walaalkaa ka gaadhsiisid intii uu daranyo maanta ahaan daran ayaa haysa
au gurigiisiina kaga soo barakacay, hantidiisiina dad haw qaaday. walaalahaygaas in la gaadho oo aan isla garab istaagno oo wada gaadhsiino wixii aan awoodi karno insha allah biidmillaahi kariim. aniga oo daa'uud ah dhinacayga diyaar ayaan ka ahay insha allah biidmillaahi kariim. inta kale ee soomaaliyeedna waxaan odhan lahaa meel kasta ood ku sugantihiin caalamka u sara kaca oo walaalka gaadhsii wixii ilaahay kaaga qadaro oo sadaqad ah. sadaqadaasi waa sadaqad maanta ahaan gacantaada ku jirta. haddii aad u bixisid dir ilaahay kuugu dhacaysa buuggaaga xasanaadka. buuggaaga xasanaadka wax gasho insha allah biidmillaahi kariim. igamaaha in aan idhaahdo anaa soomaaliya kaca, laakiin waxay iga tahay in aan garabka isqabsano oon soomaalinimo u sara kacno oon walaalaheena gaadhsiino. aniga oo luuqadda jarmalka waxoogaa yar ku turjumi doono insha allah biidmillaahi kariim. ich spreche über Somalia, ein Stadt Qardo. Das wurde der vorgestern Abend einer Wasser überflutet und damit sind 10 Personen gestorben und der andere sind komplett ihr Lebensteil verloren. Das heißt, die haben nicht anzuziehen, die haben nicht zu schlafen, die haben nicht zu essen und sind direkt auf dem Wegstraße. Weiß ich nicht, wo die hingehen können. Diese Überflutung war unerwartet in der Mitternacht und damit waren viele gestorben, die zurzeit 10 Personen gesagt wurden, aber wir wissen genau nicht. Wir brauchen die Freiwillige, die damit beteiligen können. Inshallah, bi'idhnillahi karim. Wann über die Beteiligungsfreiwillige geht, es gibt eine Organisationsverein in Marburg, somalische Gemeinschaft in Marburg, Biddendorf. Es wäre schön, wenn einige von euch die beteiligen können und damit die irgendwas zum Anzuziehen oder was zu essen, die andere zu kaufen können. Inshallah, bi'idhnillahi karim. Lieber Gott segnet euch. Inshallah, bi'idhnillahi karim. So, gute Ramadan, guten Zeit. Inshallah, bi'idhnillahi karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.